warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kun waxaan wanaagsan daawadashana sharafta leh meel walba naga daawanaysan isoo walba maqalkeena soo gaara waxaad leenahay mar kale iyo muuqaal aad u qurux badan muuqaalkeena caaw waxaan wadi doonaa ama reaction ugu bixin doonaa maase aad u qurux badan taa oo ay ku luqeynayso ama ay maxaan ku raahdaa tirinayso gabraad dayada balse marka hore waxa ka codsanayna in muuqaalka like saarto oo aad soo gaaro siina share gareyso follow-na aad tiraahdo commentingana waxaad jeceshahay wax soo qori kartaa hees wadani ahayd laakiin macaawo waa maanso insha Allah kulli aan wada dhageysano yaan waxba hadalkeedin ku daalin waxay ku bilaabi doontaa bal aan wada arag waxaan fariin u diray ardayda wax ila dhigata waxaan ugu diray qaab suugaaneed waxaan leeyahay maasadaydu dhaqankaysahan iyo gaboodiyo dhufaysiyo tahiil marna waa tusaaliye toosin iyo wax sheego tubta waxay tusaysaa dhalinta isqaawinta darajada u haysto dhaqan hiilis weey waxay leedahay waxaan la hadlayaa ardayda wax la barata iyo waliba baaqay u diraysa ardayda Soomaaliyeed tamaan waxay leedahay maasadaydu waxay dhaqan iyo gabood iyo hiil u tahay maxaan ku raahdaa dhaqanka waxayna talo iyo tusaalo ee u iftiiminaysaa ardayda ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee mooda dhaqanka isqaawinta ah wax qurux badan waxay leedahay waxa ay tusaale iyo tusmo u tahay dhalinta Soomaaliyeed ee dhaqanka mooda inay isqaawiyaan waxa aan sidaa gabay saakiyo wixii dambe ruuxii dhageysta aan isleeyay uu hagi waxa aan sidaa gabay diintii islaamkiyo Soomaali dhaqankeed ee guumeystihii Yurub duulaan ku soo raray uga hiil isleeyahay wajiyada sabay waxay leedahay waxa saaki sidaa gabay diintii islaamka iyo dhaqanka Soomaali u hiilinaya sidoo kale waxa ay tiri waxaan wada saaki gabay ruuxii dhageysta aan isleeyahay hiil buu u noqon waa gartay sabeeyay diyaarad samaawiga rasaaskaaga soo rida nukliyeerka halista ah baasuukayaal iyo military ku soo gala waxa taa ka sii daran dhaqankooda sumoobay bulshada ogsoonow waxa ay leedahay dabaabaad iyo diyaarado lagu soo weeraro baasuukayaal iyo hub culus oo lagu gurido waxa ka sii xun kana sii qaraar markii dhanka dhaqanka lagaaga dooriyo oo dhaqankaaga weerar lagu soo qaado dhaqankaaga doorsoomo rahantii taa waa mid aad iyo aad u muhiim ah dhaqanka mar hadduu doorsoomana wax faa'iido ma lahan dadka jiritaankooda filimada siloone saacada habeenkii sagaalada soconaya samalooma keenin la isku dhigay iyo waa gumaysi u gubo casri loo mataleeyay yaan si fudud lagu dagin waxay leedahay filimada sagaalka habeenimo soconaya waxaan ku raahdaa inta badan dadka waxay daawadaan filimaan musalsalada filimaan aflaan aad u qaab daran oo xun waxay leedahay ilbaxnimad moodaani laakiin waa gumaysi maskaxiyana oo dadka bini'aadanka qaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed lagala dagaalaya maskaxiyan adinkuna waxaad moodaan horumare yaana si fudud leedin ku daagin gaarsiinta qayb baa loo sameystay dumidii inuu soonku ka buro asturaadda quruxda diinteenu saaciday waxaan saluugsanay hablaha sabankan joogay suuqyada ku raagiyo kuwaas soo sawirayay qaar ka sare jirkooda iyo qaybii sirta ahaa isgaarsiinta qaariye soo dhigaya Facebook saaxiiba gaarina hebli waa siraadiyo faalada ku soo waxay leedahay isgaarsiinta qaar baa waxa loo sameeyay inay salaadaha ka mashquuliyaan adigoo dhan dhaqankaagii doorsoomo ay ku bedelaan balse waxaan saluugsanahay dhacday hablihiisa loona ee dhaqanka wanaagsana in ay wixii sirta ahaa ama cawradoodii soo bandhigaan oo banaanka ay keenaan kadibna la yiraahdo faaqidaad laga bixiyo oo la falanqeeyo heblo waa sida علشان هذا دقن كا وحو صعود انت بدن hablihii Soomaaliyeed in dhaqamadoodii ama dhaqankoodii doorsoomay inta badan cawradoodii Facebook ay soo dhigaan ragga Soomaaliyeed iyo dumarka qaarkoodba ay ku maadeystaan raantii waa ajiib ayadana midaas baxnimada sabankan sidloona qaraara siliskii hablaha iyo sidkii dumar lahaan jiray rag baa saaka qaato luquntooda soo suray waxa ay leedahay ilbaxnimada saladkan silona oo qaraara ilbaxnimada sidii u qaraar tahay hablaha dhaqanka lagu yaqaanay silsadii iyo dharkii hablaha loogu tala galayba rag baa saaka soo xirtay oo ilbaxnimo mooday runtii waan aragnaa rag badan oo Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo xiran katiinadihii iyo waliba wixii loogu tala galay dumarka Farantiyaada jijimihii iyo waliba katiinadihii dhaqanka waa doorsoomay silona oo qaraara ilbaxnimada anaguna aan moodno inay tahay wax qurux badan waa ajiib runaantii walidow barbaartaas adiga mas'uulay markuu tooso subaxii mariyuhu ku labistay saaxiibku raaciyo markuu soo noqonayaba walidow adaa mas'uulahe waxay leedahay ubadkaaga
markii uu subaxii soo tooso dharkuu xiranayay iyo qofkuu la saaxiibayaba waa inaad kontroshaa. runtii meeshaas waa point muhiim ah waayo waalidka Soomaaliyeed inta badan ubadka ayaga barbaariya waxaana laga doonayaa waxay tahay inay la socdaan cunugooda meesha uu marayo qofkuu saaxiibka leeyahay dhaqankiisa waxa uu ku sugan yahay waa inay wareystaan inkastoo sabanadan dambe iyo waliba sanadihii dambe waalidkii iyo wiilkii ay kala mashquuleen warba aan la isku hayn. mar haddaad islaam tahay adaa kaba sarreeyay iska dhigidda ruux kale sama lagama gaadheen leedka reer Yurub wax kastoo ka aragtaan iyo si fudud ku dagin. waxa ay leedahay marba haddaa islaam tahay adaaba kaba sarreeyay iska dhigga ruux kale sama laguma gaaree dhaqanka reer Yurub yuusan si fudud kugu dagin. runtii markaad tahay Soomaali haddana ah qof islaam ah runtii adiga dadka ugu sarreeya dhaqan qof kale uu leeyahay yuusan ku sirin weligaayo yuusan ku dagin adaaba dadka ugu sarreeya adna waxaad isku malaysaa inaad dadka ugu liidato ku dagin hortayaad tusaale ku noqon hortayaad la socotaa yu tusaale ku noqon in islaamka kula nacab yu tusaale ku noqon ruux salaada kaba tagay yu tusaale ku noqon surwaal ka dhacaya. waxa ay leedahay hortayaad la socotaa iska fiiri qofka aad la socotid yuusan tusaale ku noqon qof salaadi ka tagay qof islaamka kula nacab misana islaamkiiba nacab adigana islaamnimadii uu kula nacab yahay isagina islaamnimadii uu nacab yahay. qofka aad la socoto iska fiiri hortayaad la socotaa ruux surwaalkuba ka dhacayo laakiin inta badan dhaqanka hadda sidoo u doorsoomay dadka waxa weeyaan surwaal waxa imaaday laga xirto xagga dambe waa aragna Soomaali baa tahay dhaqan suubana tahay ruux islaam baa tahay Ingiriis tacliis iyo Singapore ma dhalan sadnaba ma wadaagtaan ruux islaam baa tahay Ingiriis ma dhalan iyo Singapore sinjina ma aad wadaagtaan waa runtii waxay tahay ruux islaam mar hadii aad tahay misna Soomaaliya Ingiriis dhalashadiisa iyo Singapore sinjiba ma wadaagtaan maxaa ku geeyay dhaqan kaleeto insigiyo junuudaba sabab loo abuuriyo su'aalaha sugaayay ku sugnaw kitaabkii dariiqii islaamka oo sunnahana gees marin. waxa ay leedahay insigi iyo jinnigaba sabab loo abuuraa jiray su'aalaha sugaysay ku sugnaw kitaabkii diinta marnaha balmarin. runtii waxaan leenahay xaqiiqatan insi iyo jinni waxa loo caabudo waxay tahay inay Ilaahay abuuraan waayo aayad Quraan ba waxay ahayd wama khalaqtu jinni wal ins illa liya'budun. insiga iyo jinniga su'aal ba sugaysa adigana waxaad ku xisaabtantaa inay su'aal ku sugayso mar walba waxaad ku dhiganaataa dhaqankaaga iyo kitaabkaaga waayo qof kale ta dhaqankiisa inaad ku dhiganaataa waxba kuma soo faa'iideynayso.